Wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kulanka dhacdooyinka oo aad ka daawan doontaan janalka Axmed Saliim. Qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid ah dagaalo culus oo mar kale ka qarxaya dalka Liibiya, Israa'iil oo ku fashilantay howlgal inay ka fuliso magaalada Gaza, iyo warar la xiriira doorashada dalka Giriigga. Qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan barnaamijka kulanka dhacdooyinka. Wararka naga soo gaarayo dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay dhinteen ku dhawaad 16 askari oo daacad u ah Jenaraal Khalifa Xaftar kadib dagaalo culus oo ka qarxay garoonka Mucaytiba ee dalka Liibiya. Dagaalkaas oo sababay in uu hakad ku yimaado habsami socodka garoonka ku-meel gaarka ee garoonka Mucaytiba. Wararka ayaa intaa ku daraya in diyaaradda nooca basaaska ah ay duqeyn ka geysatay goobo ay maamusho xukuumadda oo majraha u hayo Faiz Sarraj ay qaramada midoobay aqoonsan tahay. Garoonka Mucaytiba ayaa ku yaalo saldhig military wuxuuna shaqaynayay tan iyo markii uu xirmay garoonka Tripoli sanadkii 2014. Israa'iil ayaa ku fashilantay inay howlgal qarsoodi ay ka fuliso magaalada Gaza. Ciidamada Yuhuudda ayaa qirtay inay ku guuldareysteen inay howlgal qarsoodi ay ka fuliyaan magaalada Gaza, kaas oo ujeedkiisu ahay in lagu dilo saraakiil ka tirsan ururka Xamaas, gaar ahaan garabka military ee Al-Qassam. War ay soo saareen ciidamada gumaysiga ayaa sheegay in howlgalkaas lagu dilay 6 Falastiiniyiin ah, midkoodna uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan Qassam, garabka military ee ururka Xamaas. Ugu dambeyntii warbixinadeena barnaamijka ayaan idiin soo qabanaya. Wararkan ka imaanayo dalka Giriigga ayaa sheegaya in uu ku guuleystay xisbiga midigta dalkaasi kuraasta baarlamaanka ee doorashadii lagu qabtay maalintii shalay dalkaasi Giriigga. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Giriigga, ninka lagu magacaabo Kyriakos, ayaa sheegay in doorashadan ay fursad siin doonto dalka Giriigga isbedel xooggan oo geli doono. Guud ahaan barnaamijkeennii kulanka dhacdooyinka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa.